bismillaahi raxmaani raxiim galab wanaagsan halkani waa xogbaahyaha ciyaaraha barnaamijkani galabta waxaynu ku soo qaadan doonaa wararkii ugu dambeeyay ee suuqa kala iibsiga ciyaartooyda iyo natiijadii kulamadii shalay la ciyaaray ee Euro 2020 fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe inoo saar haddii muuqaalkan uu ku cajabina fadlan like inoo saar like waxa ay naga caawinaysaa in muuqaalku uu gaaro asxaab badan mahadsanidin aynu ku bilawnay shalay waxaa halkiis ka sii socday kulamadii saddexaad ee Euro 2020 waxaana shalay ciyaaray Group D xulka wadankaasi Croatia ayaa 3 gool iyo gool kaga adkaaday xulka Scotland halka xulka wadankaasi England uu guuldaro gool iyo ever uu dhabarka u saaray xulka wadankaasi Czech Republic waxaa maanta la ciyaari doonaa kulamadii saddexaad ee gruubyada E iyo F xulka wadankaasi Sweden ayaa la ciyaari doona xulka Poland halka xulka Slovakia uu la ciyaari doona Spain waxaana groupka E kulamadiisa la ciyaari doona saacada marka ay tahay 7 habeenimo waxaa 10 habeenimo la ciyaari doona groupka F oo ay ku jiraan xulalka Portugiiska Faransiiska Jarmalka iyo Hungary waxaan ciyaarta saddexaad iswajihi doona xulalka Portugal iyo Faransa halka kulanka kalena uu dhaxmari doona xulalka wadankaasi Germany iyo Hungary markana aynu u gudubno wararkii ugu dambeeyay ee suuqa kala iibsiga ciyaartooyda kooxda kubadda cagta ee AC Milan ayaa suuqa u gashay bedelka laacibkoodii qadka dhexe ee Hakan Çalhanoğlu oo si bilaash ah ugu biiray dariskooda Inter Milan sida ay maanta qortay Tutto Sport iyada oo xiganaysa Milan News maamulka naadiga Milan ayaa qiimeyn ku wada dhowr ciyaartooy oo kala duwan kuwa oo ay doonayaan in midkood ay bedel uga dhigaan xidigoodii hore ee reer Turki xidigaha Dani Ceballos iyo Marcel Sabitzer ayaa ah magacyada ugu sareeya liiska maamulka Milan gacanta ku hayaan Ceballos oo 2 sano amaah ku qaatay Arsenal ayaa sanadkii hore si xooggan loo xiriirinayay Milan inta uu san ku laaban Arsenal halka Sabitzer oo in muddo ah raadarka u saarnaa Milan waxaana haatan uu ku jiraa sanadkii ugu dambeeyay ee heshiiska kooxdiisa reer Jarmal ee RB Leipzig waxaana macquul ah in Milan ay xoog saarto adeegiisa sidoo kale waxaa liiska kamid ah xidiga kooxda Chelsea ee Hakim Ziyech laacibkan ayaa sanad ka hor naadiga reer London ka soo biiray Ajax waxa uu haatan kamid yahay xidigaha Chelsea ay iska fasaxaysay xilli ciyaareedkan Chelsea ayaa si fudud ku fasaxi doona xidigan iyaga oo ugu yaraan raba in ay soo cishtaan dhaqaalihii kaga baxay laacibka reer Morocco dhinaca kale kooxda reer Talyaani ee Sassuolo ayaa isku diyaarinaysa wada hadallo adag markii xidigaheeda Manuela Locatelli iyo Domenico Berardi ay bandhig wacan ka sameeyeen tartanka Euro 2020 xidigahan ayaa xiise ka helay kooxaha Juventus iyo AC Milan waxaana maamulaha guud ee Sassuolo maanta si cad u sheegay inuusan damaanad qaadi karin in labadan xidig ay ku sii nagaan doonaan garoonka Mapei ee ay ku ciyaarto kooxda reer Talyaani maalinimada Arbacada ah ayaa lagu soo waramayaa in Juve ay la kulmi doonto dhigeeda Sassuolo iyada oo kala xaajoon doonta qiimaha 40 milyan ee la dul dhigay Manuel Locatelli marwada duqda ah oo horey heshiisyo ciyaarto isdhaafsi ah oo la sameeyay Sassuolo ayaa haatan rabta in daafaceeda da'da yar ee Radu Dragusin ay qayb kaga dhigto heshiiska ay ku doonayso Locatelli sidoo kale Domenico Berardi ayaa xiiso ka helaya Milan waxaana Sport Italia ay ku waramaysaa in xidigan uu yahay dooqa koowaad ee tababaraha kooxda Milan Stefano Pioli waxa uu horey isugu dayay saxiixa xidigan xilligii uu ku sugnaa Fiorentina sanad ka hor Berardi ayaa 27 jir noqonaya bisha inagu soo aadan waxaana bandhigiisa wacan ee Euro 2020 uu ku riixayaa inuu u dhaqaaqo naadi uu ku matali karo Champions League Sassuolo ayaa ku qiimeynaysa 40 milyan balse Milan ayaa qarashkaasi bixin karta haddii ay ku guuleysato iibka weeraryahankeeda Rafael Leao dhinaca kale kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa heshiiska shakhsiga ah la gaartay weeraryahanka kooxda Borussia Dortmund Erling Haaland sida uu ku waramaya Alfredo Bedula oo ka tirsan Gazzetta dello Sport waxa horumar laga sameeyay tartanka loogu jiro helista saxiixa weeraryahanka halista ah ee Haaland 20 jirkan reer Norway ayaa markii uu ka mid noqday Dortmund waxa uu kooxdiisu u dhaliyay 57 gool isagoo caawiye ka ahaa 15 kale 59 kulan oo u saftay naadiga jaalaha iyo madowga wariyaha reer Talyaani ayaa shaaciyay in Madrid iyo Haaland ay wax walba ka heshiyeen waxaana Madrid ay haatan bilaabi doontaa wada hadallada kooxda reer Jarmal ay la galayso
Dortmund ayaa 175 milyan oo euro dul dhigtay laacibkeeda wuxuuna Madrid ay macquul tahay in ay u soo bandhigto kooxda reer Jarmal heshiis ay ka mid dhigayso qaar ka tirsan ciyaartooydeeda. Erling Haaland ayaa ah weeraryahanka lagu doonista badan yahay Yurub haatan waxaana kooxaha sida aadka ah loola xiriiriyay ka mid ah naadiyada reer England ee Chelsea, Manchester United iyo Manchester City, balse Madrid ayaa haatan u muuqata mid ku dhow heshiiska laacibkani. dhinaca Faransa waxaa si la yaab leh maanta u soo baxay warar sheegaya in naadiga reer France ee PSG ay doonayso in markale garoonkeeda ku soo celiso daaficii hore ee Arsenal David Luiz. madaxweynaha kooxda reer France ee Nasser Al Khalifa ayaa ah taageero weyn oo xidigani balse tababare Mauricio Pochettino ayaa ka labalabeenaya go'aankaasi. 34 jirkan ayaa haatan ka tirsaneen wax koox ah maadaama uu dhamaaday heshiiskii uu kula joogay Gunners waxaana macquul ah in heshiis hal sano ah uu ugu laabto garoonka Le Parc des Princes xagaagan. kooxda PSG ayaa raadinaysa daafacyo khibrad leh waxaana horey loola xiriiriyay Sergio Ramos. dhinaca kalena kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa soo bandhigaysa xiise xoog leh oo ay u qabto qadka dhexe ee kooxda Aston Villa iyo xulka Scotland John McGinn. tababaraha kooxda Reds Jurgen Klopp ayaa la dhacay qaab ciyaareedka xidigan kulankii guuldarada 7 gool ay ka soo gaartay Aston Villa xilli ciyaareedkii dhamaaday waxaana macalinka Jarmalka ah uu xog wareysi dheer u diray daaficiis Robertson oo dalwadaag yihiin xidiga kooxda Villa. Liverpool ayay ku adkaan doontaa helida saxiixa laacibkan maadaama Aston Villa ay haatan u muuqato koox doonaysa inay u tartanto kaalmaha sare ee horyaalka balse qiimo dhan 50 milyan oo pound ayay macquul tahay inay aqbasho Aston Villa haddii ay fasaxayso motorkan qadka dhexe. Liverpool ayaa weli raadinaysa bedelka Gini Wijnaldum oo ka haya kooxda xagaagan. ugu dambeyntiina kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa maanta si xooggan loola xiriiriyay weeraryahanka xulka England iyo kooxda Everton Calvert-Lewin ayaa tan iyo markii uu kooxda ka hayaamayay tababare Ancelotti lala xiriirinayay inuu isaga hayaami doono kooxda Everton. Real Madrid ayaa ahayd kooxda sida xoog leh loola xiriirinayay isbuucyadii ina dhaafay maadaama tababare Ancelotti uu haatan hayo shaqada kooxda reer Spain. Telegraph ayaa maanta qortay in Arsenal ay haatan ku biirtay kooxaha qiimeynaya laacibkan waxa ayna doonaysaa inay bedel ay uga dhigto Alexandre Lacazette oo kooxda ka bixi kara xagaagan. kooxda Everton ayaa laacibkan ku qiimeynaysa haatan lacag ka badan 50 milyan oo pound waxaana kooxaha doonaya qasab ku ah in ay jaabka gacanta geliyaan. barnaamijkeena galabtana waa inaga intaa.